السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج عاوان idinku hayo waxaa kamida Donald Trump oo sheegay in loo gudbi doono wajiga labaad wada hadallada Gaza isla markaana baaq u diray Hamas. Hadaba muxuu ka hadlay tafaasiisha wararkii ugu dambeeyay waan idin hayaa. Israa'iil oo cadaadis la saaray kadib markii maanta ay sheegtay in la yareynayo gargaarka Gaza. Hadaba imisa ayay ogoshahay maalinkii baabuur xamuula inay gasho Gaza Israa'iil maxay sidiidan tahay war ay caawa soo saartay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Waxa soo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa madaxweynaha Indonesia oo la sheegay in markaa aanay waxba ka jirin wararka warbaahinta qaar ay sheegeen inuu Israa'iil aadayo. haddaba sababta keentay arrinkaas iyo tafaasiil ku saabsan arrinkaana waan idin hayaa. xaaladaha guud ee Gaza iyana wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa. Donald Trump ayaa waxaa la sheegay in uu markaa sheegay wajigii labaad ee wada hadallada Gaza in loo gudbayo oo ay bilaabanayaan, laakiin baaq ayuu u diray Hamas. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray, haddaba waxaa la sheegayaa Donald Trump wuxuu sheegay in la galay marxaladii labaad ee heshiiska Gaza wayna bilaabanaysaa uu yiri hadeer. dhanka kale waxa uu sheegay in markaa loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka shaqeeyaan, wuxuuna ugu baaqay xarakada Hamas inay soo dhiibto lafaha dadka dhintay ee Israa'iiliyiinta ee ay hayaan. waxaana uu sheegay inay taasi muhiim u tahay sidii loo dardargelin lahaa wada hadallada oo wajiga labaad loogu gudbi lahaa. haddaba Trump waxaa la sheegay inuu warbixintan ku soo qoray boggiisa internetka uu ku leeyahay la yiraahdo Truth Social. waxaana la sheegay in markaa uu sheegay rajada laga qabo wada hadalladu inay miro dhal noqdaan. marka wuxuu leeyahay wajiga labaad la galaya hawshu way soconaysaa, laakiin nimankaana taaka ku ah maaragtay Hamas lafaha ay hayaan hanaga soo dhiibeen. dadkii noolaaba way soo dhiibeen, lafii marka hala keeno. hadda marka shalay 4 mayd oo Yahuuda lafahooda ayaa la dhiibay. hadda marka caawa waxaa la sheegayaa iyadana qaybaha caafimaadka ee Israa'iil waxa lagu wargeliyay ee hawsha qaabilsan inay diyaar noqdaan lafii markii loo keeno si ay DNA-da iyo baaritaankii ugu sameeyaan inay dadkaas Yahuudda maqan yihiin iyo in kale in markaa la ogaado. marka qolada markii heeganka la geliyo macnaheedu waxay tahay lafa kale ayaa la soo wadaa. hay'adda ICRC ayaa ka soo qaadaysa Gaza. marka waxa leeyahay hawshu way socotaa, lafuhuna dad noolba ahanay waa la isu keenayaa, waa la isku aruurinayaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray, qaybaha caafimaadka ee Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inay diyaar u yihiin qaabilaadda tiro ka tirsan lafihii dadka dhintay ee maxaabiista Israa'iiliyiinta ah. hay-adda wararka faafisa Israa'iil ayaa waxay sheegtay machadka caafimaadka sharciga ah in loo diyaariyay soo dhaweynta ama qaabilidda lafaha dadka Yahuudda ah ee laga keenayo Gaza. sidoo kale uu sheegay kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin oo sheegaya in caawa tiro lafa ah Yahuud ah laga soo qaadi doono Gaza oo la geyn doono Israa'iil. marka waxa leeyahay bilaasha marka Israa'iil wax weyn ka dhigaysa, laakiin Hamas waxay leeyahay anagu kuwii noolaa dhiibnay lafa maxay ku falaynaa lafa laakiin meelay ku jiraan waqtiye qaadanayaan in la sugo waayo ee shaqadu ha sii socoto. wareegii kale wada hadalladii waxay ha sii socdaan. Netanyahu iyo kooxdiisa marka meelay daaqada kaga galaan ay rabaan marmarsiyo. heshiiska wali wax ka dhimay heshiiska soo dadkii 20 noolaa soo laydima siin lafahan maxay marka lafahuna burbure ku hoos jiraan waa la soo qofaya waa laga keenaya waqtiga qaadanaysa suga. marka hawshaas halkaas maraysa. dhanka kale marka waxaa la sheegayaa nimanka Israa'iiliyiinta maanta barnaamijkii hore ee galabta waxaan ku soo qaadanay inay qaladaad badan sameeyeen, duqeyn sameeyeen,
macbar rafax lama furi kara yiraahdeen gargaarka waa in la yareeyaa yiraahdeen waxay rabaan ay sameynayaan marka waa loo kaadinayaan waa tii Erdogan u jawaabo yiri la idinka yeeli maayo hadda kadib xasuuq dambe iyo inaad dhibaato kale gobolkan u keentaan wax la idinka yeelaa mar heshiiska inuu meel maro annaga saxiixno marka waxa la idinka aqsanaa mar marka hawshaasu saasay u qaraacan tahay marka waa baashu way wareersan tahay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay gargaarka laga qoray wakaalada wararka ee Reuters oo Al Jazeera ay soo xiganayso waxay leedahay Israa'iil waxay sheegtay inaanay ogolaan doonin 300 oo gawaarida gargaarka ah Gaza in la geliyo wax ka badan ma ogolaanayna ilaalin Israa'iil marka waxay sheegtay in ay qaramada midoobay u gudbisay arrinka ku saabsan 300 oo gargaar baabuur in ay ka badan aanay aqbali doonin laga bilaabo Arbacada dhanka kale waxay diideen in la geliyo Gaza shidaalka iyo gaaska oo Gaza ay baahi weyn u qabto iyo alaabooyinka muhiimka u ah ee liiraado adeegyada bulshada ee bunya taxtiya marka waxyaabaha muhiimka way diidan tahay gaaskii shidaalkii wixii oo dhan mala gelinaya leeda marka maxay xujo uga dhigaysaa marka waxay xujo uga dhigaysaa hal la soo dhameystiro lafaha naga maqan 28 lafahooda naga maqan markii la soo dhameystiro aan hawshan annaguna fasaxayna leeda marka waa un iska xujo socota oo dhibaato socota waay meeshaas halkaas ay marka baashu bareys barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtan maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha Indonesia oo shirkii Sharm el-Sheikh ku sugnaa ayaa waxa la lahaa Israa'iil u aadayaan oo Israa'iil muxuu ka doonayaa maxaa ka dhaxaya Israa'iil iyo Indonesia sheekadii marka waa wax ka jira ma jiraan wax been waay dheen nimankii Indonesiaanka waa diideen waxaas waa dacaayada dheen haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Indonesia ayaa la sheegay inuu dib ugu laabtay Indonesia wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa beenisay inuu madaxweynuhu booqasho ku tagayay Israa'iil waxay tiri sheekada waxba kama jiraan haddaba madaxweynaha Indonesia ninka la yiraahdo Bravo Subianto ayaa la sheegay inuu dib ugu laabtay dalkiisa kadib markii uu ka soo qayb galay sharbadaxeedkii Sharm el-Sheikh ee lagu saxiixayay heshiiskii Gaza wasaaradda arrimaha dibadda Indonesia ayaa sheegtay in marka wararka sheegaya booqasho Israa'iil inuu ku tagayo ay tahay mid aan waxba ka jirin warkaana ay marka dhoodhoobeen oo ay buunbuuniyeen warbaahinta Israa'iil waxayna sheegeen in madaxweynuhu aanu warkaas waxba kala socon ay u yahay war beena oo aan waxba ka jirin haddaba waxaa la sheegay inuu ka degay airportka Jakarta oo markaa si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas way marka Indonesia marka waxa leedahay waxaas waxba kama jiraan Israa'iil anaga wax ilaaqa oo naga dhaxay ma jiraan marka ma dhici karto madaxweynuhu inuu tago muxuu ka doonayaa ilaaday meeshan hawl badan socota marka hawlahaas halkaas ay marayaan